إبراهيم سعيد دنبيل ومواطن رير سوماليلانا waxau socod luga ka soo bilaabay controlka bariga magaalada Gabiley oo qiyaasaan ku dhawaad 6 kiiloomitir dhinaca bari ka xiga magaalada Gabiley muwaadinkan ayaa socodkiisa lugta waxa uu telefishinka sahan u sheegay inuu ku wajahan yahay jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama ee gobolka Awdal isagoo markaasi lugeynaya hadafka iyo ujeedada socdaalkiisa ayuu Ibrahim Siciid Dambeel ku sheegay inuu xusayo madaxweynihii hore South Africa Nelson Mandela muwaadinkan ayaa sita calanada Somaliland iyo South Africa bulshada magaalada Gabiley ayaa ku noqotay arintani taajib maadaama la arkay isagoo dhex lugeynaya magaalada Gabiley wuxuuna sitay qalab tirinaya marba qiyaasta kiiloomitir ee uu soconayo imika waxa uu socday 7 kiiloomitir balse uu sii wadaya socodkiisa lugta ah ee ku wajahan jaamacadda Amuud ee gobolka Awdal Ibrahim Siciid Dambeel waxa uu sheegay in ujeedada ka dambaysa xuskiisa ay salka ku hayso inuu dadka xasuusinayo in aan la ilaawi karin ama aan la ilaawin Nelson Mandela oo haliyay ku suntan taariikhda caalamka oo soo halgamay in meesha laga saaro midabta koorkii lagu hayay shacbiga dalka South Africa arrintan ayaa noqonaysa dhif iyo naadir in la arko shakhsi masaafo inta leeg oo socod luga ku soo mara isagoo iskaga kala gooshaya magaalooyin kala fog Ibrahim Siciid Dambeel ayaa sidoo kale sita sahayda uu jidka ku sii isticmaalayo si uu uga midho dhaliyo hadafkiisa oo ah inuu xuso madaxweynihii hore dalka South Africa Nelson Mandela isla markaana uu socod luga ku tago jaamacadda Amuud ee magaalada Boorama oo uu hadafkiisu yahay sidoo kale waxa uu noo sheegay inuu socod orod ah uu hore ugu xusay madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Somaliland Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal socdaalkiisani waxa uu ka soo bilaabmay gobolka Gabiley wuxuuna ku dhamaanaya gobolka Awdal waa sida uu sheegay inay rajadiisu tahay Ibrahim Siciid bulshadu waxay ku aragtaa adigoo dhex maraya magaalada Gabiley waxaad sheegtay inaad ka soo bilowday socodka controlka ujeedaduna ay tahay ilaa jaamacadda Amuud ee gobolka Awdal masaafada inta leeg iyo waynu ognahay cadceedda kulul dhibaatada inta leeg bal maxay tahay sababta kugu kaliftay inaad lug halka ilaa halka aad ku tagto horta aniga maanta ma socdo ayaan orod ban meesha ku soo maray anigoo ordaya ayaan ka soo bilaabay halka wax imika dhibaatana iguma haysan inaan socdo hadafkayga ugu weynaa waxaan doonayaa inaan xuso madaxweynaha South Africa Nelson Mandela ujeedadaan uu xusayaana inaan la ilaawino sida lagu ilaawin maadaama ahaa haliyay qaaradda Afrika magaceenu soo jeeday marka ujeedadaan xusaya wata waxaad xusaysaa madaxweynaha South Africa madaxweynaha South Africa waxaad markaa soo qaatay garanaad ku soo qortay xuska haliyayga Afrika Nelson Mandela okay reer Somaliland baad miyaan la oran karin waxa ka mudnaa inaad sidan oo kale u xusto Maxamed Xaaji Ibrahim Cigaal mayo isaga laftigiisa orod waan u qabtay orod ugu qabtay inkastoo orodkiisa aanan intan doonaya aanan ku guuleysan laakiin haddana markii hore anigu aan tareeniga qaadanayay waxaan u tareeni qaadanayay in Cigaal baan u tareeni qaadanayay orod badanna waan u sameeyay isaga in Cigaal ninkan hal orod kaliya baan u sameeyay laakiin in Cigaal orod badan baan u sameeyay jaamacadda Amuud baan ka soo bilaabay ilaa Kalabeyd Gabiley baan ka bilaabay ilaa Hargeysa marka isaga laftigiisa in badan baan xusay laakiin xuskan maalinta socodka imika Mandela ayaan xusayaa in Cigaal aan xusayaa marka bisha May la gaaro insha Allah hadii la helaado okay bal waxaad noo sheegtaa ama bulshada la wadaagtaa waxyaabaha ugu xiisaha badan ee ku kalifay inaad madaxweynaha aad xusto niyo horta aniga markii hore waxa igu dhaliyay in Cigaal baa igu dhaliyay orodkan oo markii uu dhintayna Axmed Soomaaliland wuxuu soo qabtay ayaan ka yar murugooday dabeeta ujeedadaas markii hore in Cigaal in orod sameeyo aan xuso oo maalmaha kamid aan la ilaawin oo dhalinyarta jiilka dambe si ay u xasuustaan ayaa ujeedadeeda ugu weynahay marka ujeedadii ugu weynaysan aanu sameeyay orodkii ayaan markii dambe Nelson Mandela loo sameeyay laakiin orodkii ugu dheeraa ayaan u qabtay dabadeed ee ku guuleystay marka sababtaas ay u kaliftay ma jirta cid ka taageeraysa inaad arrintan samayso haday noqoto xagga dhaqaalaha ma jirta maya anigu baa iska taageeray okay marka tagto sidaas sheegtay waxaad ku socotaa jaamacadda Amuud marka jaamacadda Amuud tagto ma laga yaabaa inaad mar labaad soo noqotid bal waxyaabaha marka ay ku sameynaysa adiga bulshada la wadaag socodku ma soo noqonayo baawar baa iska soo raacay marka dambe okay marka ma si joogtaad u xusi doontaa sanadkiiba mar bishiiba mar ma si joogto baan xusay waqtiga dhimashadiisu baan xusaya sanadkiiba mar okay bulshada waxaad kula u sheegtaa xilliga kugu dhalatay inaad qorsheyn sameeysid asaaska markii ugu horeysay kugu dhalatay markii ugu horeysay aan sameeyay waxa ahayd 2016 ayaan markii ugu horeysay aan sameeyay ahayd dabadeeto markaasaan tareeniga bilaabay orodka dheer inaan orod dheer sameeyo markii hore orodyahan baan ahaa deeteen orod dheer sameeyo oo masaafo orod aad u dheer sameeyo ayaan markaa aan ku dadaalay oo tababar baan u qaatay
okay ugu dambeyntii bulshada reer Soomaaliland iyo guud ahaanba bulshada Afrika ma u soo jeedinaysaa in sidaas oo kale iyaguna ay xuskan oo kale u sameeyaan oo qofba sidoo doonayo ku xuso qof sidaas oo kale u socod ku xuso ma u soo jeedin hawan soo jeedinaya ha in xusaban soo jeedinaya si aan haliyada aan loo ilaawin oo dadka dambe ugu taamela qaataan ayaan soo jeedinaya waxa siyaasad wanaagoogi iyo habka ay u dhaqbi jireen iyo habka ay wadada mareen inay maraan ban yaan rajeynaya insha Allah dawdeel waxa uu ahaa Ibrahim Saciid oo isugu xusayay madaxweynihii hore ee South Africa Nelson Mandela wa Jaafar Cawil Hereri telefishinka sahan magaalada Gabiley